muqdisho galabta waxaa loogu dhawaaqay isbahaysi cusub ay sameysanayaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland gudoomiye Cabdi Xaashi midowga musharaxiinta isbahaysigan ayaana ka koobnaa waa isbahaysiga ayaana xubnahan ay ku midoobeen kaas oo ku aadan qabsoomida doorasho waxaa magaalada muqdisho loogu dhawaaqay isbahaysi cusub oo siyaasadeed oo loogu magac diray golaha badbaadada qaranka kaas oo ay ku mideysan qaar kamid ah maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta isbahaysigan waxaa ku mideysan madaxweynaha Puntland Jubaland midowga musharaxiinta ee mucaaradka iyo gudoomiyaha aqalka sare ee dalka iyo golayaasha siyaasadda ee waqooyiga kasoo jeeda deegaanada Somaliland golaha badbaadada qaranka ayaa waxay ka shaqeyn doonaan sidii dalka kaga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana dalka loo badbaadin lahaa doorasho boob aan ku dhisnayn inay ka hortagi karaan doorasho boob iyo fashilka siyaasadeed ee dalka u horseedi kara burburka iyo dowladnimada Soomaaliya oo halis gasha waxaana hogaamiyaasha golahan oo gudoomiye loogu dhawaaqay inuu yahay gudoomiyaha aqalka sare dalka Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxaana xubno ka golahani madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland iyo waliba xubnaha midowga musharaxiinta hadalla ay jeedin xubnahan ayaa sheegay in ujeedka golahan loo aasaasay qayb ka tahay badbaadada doorashada Soomaaliya sidoo kale madasha badbaadada qaranka ayaa waxaa hogaanka ugu sareeya u doorteen gudoomiye Cabdi Xaashi sidoo kale ku xigeenna waxa ay u doorteen madaxweynihii hore dalka Shariif Sheekh Axmed halka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay xubno ay ka yihiin marka loo eego hanaanka loo qaybsaday hogaanka badbaadada marka laga tago war saxaafadeedka ay soo saareen oo akhriyay wasiirka dhinaca kale waxa si kooban u hadlay xubnaha ku jira gudigan haddii aan soo qaato madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa soo qaatay ama ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba xaaladda cakiran asagoo sheegay in dalka uu marayo marxaladii ugu adkeeday marka loo eego waxa uu Axmed Madoobe qiray in 11 habeen uu joogo magaalada Muqdisho intaas uu soo kulmin xubno kamid ah dawladda ama mas'uuliyiinta gudiyada ka shaqeynaya doorasho gaar ahaan asagoo si dadban u soo hadal qaaday gudiyadii farsamo ee maanta Muqdisho ku kulmay waxaan maleynayaa murtida warku warqadu ku yaalay intii la sheegay beenahay waxay dhabtu tahay waxa la dheriga maxaa karka ka keenay kulaylka dherigu inuu karo oo uu bixiyo karka keenaya kulaylka keenaya maanta xaaladda aan ku jiro shaki kama jiro waa marxalad madow oo moodo inay Soomaaliya xaaladda ku socoto إلا دجناشها السياسة الصومالية وحبيس وعين أفرتي سنة وإسبدلين ودعاء من كستو أفرتي سنة مرينا سوى دمع كتيره ينتهي سلوا مدحوين الشريف كان لي ما عين دعينين أو ما ينصور تجلا عين مدحوينا كستو دور شيء جلي هذا حوج على إن برنامج كدور الشضو وكسر نقض أو كامبين كيس أو جلوس سنة يعني لكن محيا هاي قدرت لويت عليه وحولش كده يشوف فنانا إنه عارف كيس عم كوك على عم كواه صالح واحد يكون فنان مركان دور شوي كيس له صور كهالليل وحاشرت شو تعالى لها تيجي جدا بس لو كل يلي حياته يلا لو كل يلا طوال كي دور شاد يكون فضل إنه قضيت قانون وحسوه حليه لو كنا نحن يلا عصبي ودور شدد بالهذا يأخذ سنة لديس يكلم سويني هذا أنا واحد ماني والبين اللي يسوي بعد شر لقالوا خلد يرى صوب حام واحد ولا يسوق بتبع وقت اللي جوب حيني ما أنت وحن تاجرنا هاي إن على الشرين إن عيد سوي دين يا ثلاثة ودك الله كل يا وحلا جوي دين يا كل هذا مال بالغطور هدي أي إن أنفع يسوع لها شيء يديكتاتور شيء بنوعيه أنا مامولا أنا سأنا ولا ندي سؤال دجالس كي كمونا ده وح عقبات مرحلة اللي دلوقتي جالسين ووح نصام ريوي هذا واحد لو يعلن واحد تقايله أنا كأني وده كان وضع أقل يتلال وضع تشتغل يوح ليسكو جهة ميلو جاري كده أنا وحسوا سنة يعني لنا ميلكم جاري صومالي هنا يصوت مع دو ميسك وضع فريسته oo wixii danteeda ay ka tashataan asala inaan wax dumino iyo inaan wax gaar ah dhisno iyo inaan wax la cararo midna ma aanan sameeyno waxaan u sameeynay in la isu yimaado la wada tashado gacmaha la isqabsado wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo
waddanku uu sidaa ku badbaado taasay ahayd muhiimaddaan u sameyn dareennada qaar hadday jirto qolo gooni ee cidda wax shidanaysa waa kuwa hadda dikaale guddi farsamo caawa 11 habeeniya intaan magaalada muqdisho joogo ma joogtaa ma timid nimanka mas-uuliyadda hadda sheeganaya guddiyaha shirayana xataa su-aal la isma weydiin inaan joogiyo anaa isu jooga anaa isu imid waxaa laga hadlaya waxaa le wasiiraha loo yeelo shirha galeel waxay isweydiiyeen waa nasiib daro aan ka wada fakaro waddankaani waxaa la yidhi qofku waxa uu ku bukoodo laguma daweeyo qof hadduu caano dhanaan ku bukoodo suusaca caanaha suusaca wax walba hadday yihiin lagama yaabo inuu dawo u noqoto dadkan qoorqabasho dawo uma aha waxaa dawo u ah wadatashi is-ogol is-horfadhiisi xal la gaadho wixii dan soomaaliyeed loo arka loo sameeyo waxaan rabaa beesha caalamkana inaan u gudbiyo oo aan u sheego waddankani xaalad waddan dhisid buu ku jiraa iyo bilow dowladnimo ma joogo anaa sidan idhi anaa sidan odhan karaya waa inay laga fakero oo cidda soomaali caawinaysa ay ka fakerto soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa kugusan iyo dadkoo la isku wadeen anaa idhi soomaaliya inayna ka telinayn iyaguna ay noqoto qaybta ay ka leeyihiin inay ka qaataan isu keenista dadkaas iyo tala wadaaggood iyo waxay leeyihiin haddaan iyaga iska badaynana innaga soomaalida ah aan ka fakero ka ciidankaa inta shariifku yidhi baa madaxweyne shariif baa ku filan inuu garto ciidankani shalay wixii lagu aasaasay iyo maanta wuxuu ku taagan yahay berri wuxuu kusii jiri doona ka shaqaalaha iyo ka qof waliba saasuu macnihiisu noqonaya waxay la tahay waddankan aan u soo wada jeesanno sidaan maanta ku jirnaay baraarug baa inoo tahay wake up call haddaan maanta ka jawaabo inuu garan weyno meeshaan u soconnana berri waxba kama qaban karayn caanadaa toddobada waa la qabtaa inta naga maqanna waan ugu yeedhaynaa waan isu imanaynaa soomaali waxay raalli ku tahay oo kugusan ay isugu dhiibto dhaqankeedu siduu ahaa oo sidii hadda muddadii lasoo dhaafay la isugu dhiibayee yaa rabnaa hawshan inay ku dhammaato aad baad u mahadsantihiin inta maqan iyo inta joogta iyo inta kusoo biiraysa kulli waa gobol soomaaliyeed oo fidsan waadna mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhinaca kale madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni ayaa soo hadal qaaday asna asbaabta keentay in la asaaso madashan badbaadada qaranka ay ugu magacdareen kaasoo ay sheegeen inuu badbaadinayo doorashada soomaaliya madaxweyne deni ayaa si guud usoo hadal qaaday marxaladihii ugu dambeeyey ee dalkan uu soo maray wixii la odhan lahaa waa la yidhi waxay la tahay dadkii looga sheekayn lahaa ma aha dadka halka fadhiya laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ogaadaan in dalkoodu maanta hiil uga baahan yahay in hiil qaran loo baahan yahay in hiil badbaado loo baahan yahay ku aadan in la ilaaliyo wixii muddadii u dambeysay laga soo bilaabo 2000 ee dowlad dhiska Soomaaliya ku socotay la soo amaamudayay oo maanta meel runtii laga sii ambaqaadi kara joogta waxaa madashan qaybaha kala duwan ee samaystay shirkoodii saldhig u ahaa iyagoo matalaya qaybaha bulshada ama dadka Soomaaliyeed qaybahooda in ay u arkaan in dalku uu marxalad khatar siyaasadeed u marayo dabcan nuxurka ujeedada iyo hadafka la rabo in la xaqiijiyaba warmutiyeedka ayaa lagu soo bandhigay marka ugu horeysa waxaan sidii saaxiibaday sheegeen madashani waa madal furan u furan cid kasta oo u muuqato waxa noo muuqday oo rabta in iyaduna ay ku darsato sidii dalka looga badbaadin lahaa in uu dib u noqdo wax kasta oo sabab kara dib u noqosho runtii hay-adaha dawladda ee dhisan waxay u qaybsamaan hay-ado joogto ah oo qaranku leeyahay iyo hay-ado la doorto oo isbedbedela way ka mid yihiin hay-adaha u sarreeya ee hay-adaha hoggaaminta ama xukuumadaha iyo baarlamaanada laakiin hay-adaha kale dawliga ah oo ugu muhiimsan yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliya dhismaheedu waa gundhiga aasaas ee dawlad kasta ay leedahay intii laga yiri baan ka oran lahaa saraakiil xigeenada dableyda iyo cid kasta oo la shaqeysaba hadafka ugu weyn oo maanta hor yaalla ciidankaas
waxa ugu muhiimsan inay dalka xasiloonidiisa ilaaliyaan ururada argagixisadana la dagaalamaan dowladnimadana ay garab iyo gaashaan u noqdaan dadka Soomaaliyeedna nabadgelyadooda iyo xasiloonideeda ilaaliyaan waxa iga fariin ah cadawga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ah ama golayaal ah ama fagaarayaal ah fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo laakiin lama rabo in la carqaladeeyo waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay 19kii February habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhihi karo waxay gundhigu noqotay madashaan inay asaasanto taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaas ay dhacday oo shacabka Soomaaliyeed wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda madashaan waxaa la rabaa in majarihii qalloocday ay dib u soo celiso oo wadadii ay ku soo celiso waxaan rabnaa taas inaan wada istaagno cid kasta oo damiir leh oo danqanaysa waxaa la rabaa wadadaas dheer na sugaysa oo dalka Soomaaliyeed aan ku dhisaynay in aan ku hayno oo caqabad kasta oo naga soo horjeeda istaagta haddii uu argagixiso dabacda inay hor istaagto iyo haddii uu damco siyaasi damciisu xadka dhaafo inuu hor istaagaba in wadadaa la sii hayaan rabaa inta laga gaarayo Soomaali degan oo xasilan oo isxukunta oo si dimuqraadi isku doorata markaan intaa ka dhaho waxaan rabaa beesha caalamka oo runtii ah saaxiib aan marna ay Soomaali ilaawi karin u danqatay maalintay dhibanayd 30 sano iyo ka horba ama 60kii sano ay Soomaaliya dawladda ahayd sida taariikhdeena ku cad dawladda Soomaaliya marna ma yeelan miisaaniyad ku filan inay howlaheeda maalmeedka ay ku fuliso mar walba waxay heli jirtay caawinaad iyo gacan caalami ah nasiib darro iyada oo soo kabanayso isku filnaan rabto oo meeshii la rabay la gaari lahaa dagaaladiisu ay galeen ay dawladaha ay la galeen maaragtay markaas cadowga u ahaa iyo dagaaladii sokeeye waxay wiiqeen dhammaan intii yareed oo la kasbaday oo dawladnimada ahaa 30 sanana ubadkeenna iyo dadkeenna iyo amnigeennaba waxay ku dhisan yihiin inta yar aan haysanaba waa gargaar beesha caalamka ah beesha caalamku waxaan rabnaa dabcan marna waa hay'adaha multilateraalka ah ee UN-ka iyo African Union-ka iyo midowga Yurub oo ummaduhu wada leeyihiin marna waa dawlado si toos ah wixii ka horeeyay mar dhaweyd inta badan waxaan la macaamili jiray hay'adahaas dawliga ah laakiin wixii muddadii u dambeysay markii la arkay in dalkii doorashooyin ka dhaceen 2012kii lagu doortay gudaheeda 2017kii si nabadgelyo ah la isugu wareeysaarsaday waxaad ogtihiin dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh oo aniguna aan baarlamaanka ka ahaa waxay noqotay markii ugu horeysay safaaraduhu soo degan markii la yiri Soomaaliya la isku doortay markii la yiri 2017kii haddana doorasho silmiya lagu kala wareegay waxa dhacay waxa muddo laga soo shaqeynaayo oo la yiraahdo in Soomaaliya direct support la siiyo iyadoo la marsiinayo nidaamkeeda dawliga iyo bangiyadeeda meel qurux badan baan maraynay oo runtii mashaariic horumarneed meelaha qaybtooda loo gudbay waxaan maraynay in mushaharooyinkii ay dhacdo in si joogto ah loo helo waxaan maraynay in ciidamadeennii ay soo kabtaan oo dhismaan laakiin waxaa la rabaa in aan la oran hadda la sameeyay laakiin dib loo raaco heshiisyada ciidanka maanta Turkiga aan ku faanayno la dhisay waxa soo saxiixay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed heshiisyadii waxay hirgaleen oo meesha lagu tababaray iyo la dhisay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh waxa dufcadii ugu horeeyay ka soo baxeen xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada darab sidoo kale ciidamada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka aasaaskiisa waxa lahaa Cabdullaahi Yuusuf markii ay dawladdu maaragtay 2004 federaal la qaatay haddaan taariikhda saal la isugu xirin oo dalkan dal soo kobcaya aan laga dhigin oo madaxweyne walba taariikhdiisa iyo waqtigiisa wixii ammaan iyo dhaliil u leeyahay aan loo sheegin laakiin geedigu uu socon oo maalin walba meel la degin waxa dhacaya dib u noqosho dawladda maanta joogsa waxay ku fashilantay
geedigii la waday qor isku dhiibka inay markii meesheeda ay soo gaartay qofkii ku xigay inay u dhiibto ku fashilantay waxa ay u bedeshay inaan cid ka horreysan jirin cid ka dambaysaana aysan jirin runtiina waa wax khatar ah oo u baahan in dadka Soomaaliyeed si feejigan ay indhaha ugu hayaan madasha tani waxay u taagnaan doontaa haddii Ilaahay idmo masiirkaas Soomaaliyeed oo khaldamay in la toosiyo cidna duulaan kuma aha cidna si gaar ah garab uguma aha waxay u badbaado u tahay waa badbaado qaran waa badbaado Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa institutionadii Soomaaliya maanta oo kale inaan wax la qarin baa la qabaaye laba state baan ku joognaa xataa stateyadii waa la kala dhantaalay waa la kala qaybiyey meel xun bay maraysaa marka xaqiiqda maxaa yeelay ummadu waxay ku nooshahay waa sharci iyo kala dambeyn iyo dastuur haddii la ixtiraam waayo haddii waynu naqaanaa waa soo marnoo ninba walba goofkiisu dib ugu noqon bay noqonaysaa taas way tan laga gidigaayo taas way tan la rabo in midnimadii la ilaaliyo dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan beesha caalamka oo abaal badan nagu leh oo markeeda aan gudi doonana inay nala dareento waxa meesha yaala oo meel yar oo dhow oo fudud aysan ka qabanin ay la rabo in wadanka kan si wadar ogol ah doorasho loo geliyo iyadoo la ilaalinayo geedi socodkii dawladnimada intaasaan aan hadalkayga ku soo koobaya dhammaantiin waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayuu kaasi ahaa waxaase naga xasuusinaa faahfaahinta macluumaadyada golahan la aasaasay iyo hawsha uu qabanayo in xorka khudbadii ay jeediyeen xubnahan madaxweynaha Jubbaland Puntland iyo war-saxaafadeedkooda barnaamijkeena caawa madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani madaxweyne Axmed Madoobe madaxweynihii hore ee dawladda mudane xasan sheekh dhammaan murashaxiinta xilka madaxweynenimada wasiirada xildhibaanada bahda saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxaa xaqiiqo ah in intaan hawla la qabtay in dadaal badan galay waxaan uga mahad celinaynaa dadkii si gaar ah dadaalka ugu bixiyey soo gaarsiiyey halkan maanta ujeeddaduna sida laydin sheegay waa in dalkaanu ay ka dhacdo doorasho xura oo xalaal ah loo dhan yahay laga wada tashaday badbaadisa qarannimadeenna nidaamka curdanka ee dimuqraadiga ee ka dhashay dalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay ilaalin wuxuu uga baahan yahay dadka Soomaaliyeed dhammaantood meel ay joogaan dadka isxilqaamay waxay isu xilqaameen in ay suuro geliyaan iyagoo kaashanaya Allah tabaaraka wa tacaala thumma dadka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa inay gacan ka geysato in dalkan doorasho xura ka dhacdo waajibkaas inay gutaan u istaageen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo dhammaanteenba waxaan jecelnahay waxa waaye dalkeena oo degan dadkeena xura dawladnimadeena hana qaada dimuqraadiyadda hana qaata xuquuqda dadka Soomaaliyeed oo la ilaaliyo dawladda ugu horeysa ilaaliso waxaan wada ognahay caqabaadka faraha badan ee dawladnimada Soomaaliya hortaagan maanta asbaabta loo doortay 4 sanaba inay doorasho dhacdana waxa waaye in awsan imaanin isku dhejis kursiga oo sababa in dhigdaato in dawladnimada burburto in loo laabto meesha laga yimid ififaalooyinka muuqda ee ku hareeraysan doorashooyinka ma aha kuwa dhiiri gelinaya in doorasho xur oo xalaal ay dhacdo sidaas darteed ayaana loo aasaasay maxaan ku yiraahdaa golahan si ay uga lib keenaan in doorasho dhacdo waxaan wada ognahay marxaladihii la soo dhaafay xilka ugu weyn iyo mas'uuliyadda ugu weyn waxa qaadayay madaxda dalka ugu sarreysa ayagoo kaashanaya madaxda kala duwan ee dalka waxgaradka iyo beesha caalamka inta danaysa arrimaha Soomaaliya inay hore u sii socdaan waxaan aaminsanahay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo inuusan ku bixin dadaalkii loo baahnay in guushaas la gaaro oo laga miro dhaliyo doorashadii welina su'aalo badan ay taagan inay dalka doorasho ka dhacayso in kale waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadka Soomaaliyeed mas'uuliyadda qofka loo doorto ayaa la rabaa inuu hogaamiyo doorashooyinka waana go'aankiisa waana inay go'aan ka tahay in dalkan doorasho xor oo xalaal ay ka dhacdo waxaan wada ognahay marxaladihii la soo dhaafay ayagoo intaan ka adag ayaa waxa la suuro geliyay doorasho inay dhacdo
mararka qaar waxaa farta lagu fiiqaa in madaxdii ka horreysay madaxweynaha ay waqti kororsi ay heleen. waqti kororsiga waxaa la sameeyaa inta sharciyaddu ay jirto, baarlamaanka waqtigiisa uu jiro, madaxweynaha waqtigiisa uu jiro, waxaana lagu saleeyaa howlo qaranka loo qabanayo. laakiin ma dhici karto in la raadiyo waqti kororsi marka waqtiga hay-adaha dastuuriga u dhammaado. waqti kororsi lama raadiyo. waxaan la soconnaa muddo dheer waxaa laga hadlaya doorasho one man one vote. aadaan u jeclaa lahayn gaar ahaan raggeena xisbiyada, laakiin duruufta ku hareeraysan dalka ee siyaasiga ah, midda amniga ah, midda dhaqaale, midda bulsho, intuba waxay tilmaamayaan inaysan dhici karin arrintaas. sidaas darteed ayaan u soo dhoweynay wadahadaladii dowladda iyo maxaan ku yidhahdaa xibnaha qaybaha ka ah dowladda federaalka ah ay ku gaareen dhuusamareeb ayaan usoo dhoweynay annagoo midowda murashaxiinta ah iyo annagoo xisbiye ah. arrintaas waxay naga ahaaday inaan gacan siino go-aanada lagu gaaray ee ku aadan doorashooyinka dhuusamareeb iyo heshiiska laga gaaray, laakiin nasiib darro ma naqanin kuwa fula. marxaladan hadda la soo gaaray ee maanta aan joogno waa marxalad cusub oo nooga baahan in aan u wada istaagno dhammaanteen, rag iyo haween, mas-uul iyo qof aan mas-uul ahaynba, sidii doorasha u suurageli lahay. maxaa yeelay waa xalka keliya oo loo heli karo arrinta siyaasadeed iyo midda amniba. waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo muddadii lasoo socotay dadka Soomaaliyeed ama gudaha ha joogeen ama dibadda ha joogeen waxay ka qayb qaateen dib u dhiska qarannimada. waxayna siiyeen kalsooni aad u weyn dowlad kastoo la soo dhiso, ayagoon u fiirin maxay ahaato qofkaas muxuu qaban karaa, xaguu ka yimiday, muxuu aaminsan yahay. laakiin qof walba oo Soomaali wuxuu ku dadaalay waajibaadka qaran ee mas-uuliyiinta loo dhiibay in gacan lagu siiyo. maanta waxaan joognaa hay-adihii kala duwanaa ee qaranka, gaar ahaan kuwii dastuuriga ahay inuu waqtigii ka dhammaaday. dadaal lagu qanci karo oo lagu seexo karo oo ku aadan doorashana uusan soconin. sidaas oo kale hay-adihii kale mataqaanaa u adeegaya bulshada sida amniga, iyaguna inay noqdeen kuwo loo adeegsado si sharci darro ah, lagu caburiyo dadka Soomaaliyeed, lagu qaado xurriyaadka, lagu handado qof kasta oo Soomaaliya oo muujiya inuu ka ra'yi duwan yahay nidaamka maanta jooga. taas waxay dhalinaysaa wixii shalay ay dhalisay. waxaan rabnaa inaan uga digno wiilasha Soomaaliyeed ee mushaarkooda ay bixiyaan dadka Soomaaliyeed, lagu bixiyo canshuurta laga qaado dadka, ama lagu bixiyo wax ku yimiday magaca dadka Soomaaliyeed, inay ilaaliyaan sharciga kana fogaadaan awaamirta khilaafsan dastuurkeenna iyo dowladnimadeena. waxa laga sugaayo dhalinyarada waa inay u adeegaan dadka. shalay dalkan waa la soo hogaaminayay, berrina waa la hogaami doonaa. cidday u shaqeeyaan waa qarannimada Soomaaliya, cid gaaray u shaqeeyaan ma jirto. arrintaasna waxaan aaminsannahay arrintii qarankanimada Soomaaliya u burburtay inay tahay, inaan dib loogu laabo karin. marka maanta uma fadhina inaan eed sheegano, laakiin waxaan u fadhinaa inaan xal raadino. xalku wuxuu yahay in doorashada suurtagalka ah ee weliba tii lasoo saxiixay ee lagu soo heshiiyey ee khaladaadku ay ka dhaceen, khaladaadkii laga saaro, laysu yimaado, laga soo wada qayb galo, meel cad looga heshiiyo, dalkuna doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan u aado. waxaan rabaa warkayga inaan kusoo gebagabeeyo mahadcelin aan u jeedinayo cid kasta oo qayb ka qaadatay qarannimadaanu inay dhisanto, ama ha muuqato ha la yaqaano ama yaanan aqoonin.